maalinta maalmo ka mid ah usbuuca ilaahay loo soo bandhigaa dadka acmaashooda qof waloo mu'min aan ilaahay u shariik yeelin dambigiisa la dhaafaa laba mooyaane waa labadii isa sudhnaa ee is haystay labadaa waxaa la yidhaahdaa andiru haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib iga dhiga baa ilaahay yidhaha intay ka heshiinayaan arrinkooda dib u dhiga waxaa ka mid ah مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي صدح صلاة دودا لما أقبله أضونك سيد كيسي كبح صدي قلت كان يا لكن صلاة دي صلاة أقبل معي هوين دا ساحتي يدو نكيدو علي سيه قردر يدو أي قردر انتهي صلاة دي الله أقبل معي إمام كدتك تكية يقصبك كنت كينا يبانا يوقلين hadduu dadka iska jujuubto masaajidka intuu qabsado oo imaamnimada qaato oo iska galo dadkuna aanay rabin salaadiisu maqbuul maaha ay imaamnimo baa la mid ah culimadu yiraahdaan ta madaxnimada ta wax kasta bini aadamku waxa uu wada leeyahay lama jujuubo waa inay ku ogolaadeen oo sidaasi ku tagtay idan aqbalaad aynu leenahay acmaasha waa la aqbalaa ama aynu leenahay tafaawut al-a'maal acmaashu waa kala koraysa waa kala badan tahay marna waxaynu ka warramaynaa camalku shuruudi iyo wixii laga rabay baanu laba imanin oo siisu u buraya la yaqbal Allahu salaat bighayri tuhur wala sadaqa min ghulul sala nabigu xulay alayhi salatu wasalaam hadithka muslim ilaahay ma aqbalo salaada waysa lagu tukan hada tiraa way iska tukanaya taasi aslu shariica bay khilaafsanta